maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yiraahda iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin annaga maslaxadeena kow noo ah kadibna waxaan fiirinaynaa waxa wada qabsan karno oo ah mutual respect ihtiram oo ku jiro laakiin aynan oran waa burburteen dhulka taalaan isii dhiiba annagu Soomaaliya saas uma sameysnin dadka Soomaalida asaas uma sameysna haddii dad qalad naga fahmeenna khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdii la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan dantu u ah maxay iyaga naftooda danahooda ka shaqeysanayaan markay ku imaanayaan waxay ku sheeganayaan danahooda marka haddaad adiga danahaagi annagu maalayna ummadda Soomaaliyeed ee danaheena ka hadlin haddee maslaxadda ummadeenna ma hayno maslaxad shakhsi ahna ma aaminsan qof halkan fadhiyo inuu aan isugu nimid ummadda inaga sugaysaa inaan maslaxadda guud aan uga shaqeyno ummadda Soomaaliyeed kulankan ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka iyo waxa looga hadlayay taageerida dawladda talo ay odayaasha u soo jeediyeen dawladda iyo shacabka dadejinta maqaamka Muqdisho odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay sameeyeen gudi ay ugu tala galeen in dawladda ay kala hadlaan xaaladda magaalada iyo sidii gobolka maqaamkiisa loo siin lahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo madasha ka hadlaya ayaa waxa ay dawladda ku ammaaneen shaqada wanaagsan ay u hayso bulshada sidoo kale odayaasha ayaa shacabka Muqdisho ugu baaqay inay garab istaagaan dawladda shaqeeyaan ammaanka magaalada odayaashu waxay leeyihiin dawladda talan u haynaa taladaas waxay anfacee dawladnimada iyo horumarka laga rabo dawladda iyo tallaabooyinka dawladda inay qaado ay rabto ay u fududeynaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo ayada firaaqa ku dhex jirana waxaan rabnaa inaan bi'ino haddii alla idmo dawladnimo Soomaaliya la taageero amba ha joogto amba soo socoto qodobkaas waa isla qaadanaa asaga halan cid kale loo xiriir in la wadaagno oo kale ayna qaadan karno oo ahay waana taageerna dawladda labo waxaan ku xijinay in loo baahan yahay in la saaro guddi oo la wadaaga dawladda haday xagga amniga tahay iyo haday siyaasadda taaba la wadaaga sida loo maareyn lahaay dadweynaha ama bulshada degan halkan aan loo heli lahaay kalsoonidooda la soo celay xogaa kalsoonida ka maqan sida shaqayntu ma fiicna waxaan u saarnaa guddigaasu dawladda la wadaagi doonaan sidii loo shaqeyn lahayo cadaawada la isaga celi lahay in la ogolaado dawlad iyo shacab in hal wada marno hadii laba wada markano waxna ma hagaagayo wadadeena waa dariiq mustaqiim way dariiq mustaqiimkaas inaan ku wada socnaa raba ilaahay waxba noo jiday dawladda ahaato shacab ahaado nin oo shariicada islaamka barnaamij jiro kullu waxa dastuur anti yaala samaawi ah Cabdinuur Axmed Diiriye ayaa wuxuu si guud uga hadlay kulanka ay maanta isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka meesha waxa ka soo baxay shirki maanta la isugu yimid in dawladda lagu taageero talana loo jeediyo dawladda shacabkana talo loo jeediyo dawladda taageeradeeda odayaasha ayaan ku raacsanahay talada shacabka loo jeedinayaana wax ay tahay shacabkan Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka Muqdisho culays kala duwan oo muddo 30 sano ku dhow ayay la daala dhacayeen bishii Ramadaan iyo bilihii la soo dhaafay culays kala duwan ayaa shacabkuna meelaha qaar ka jiray dawladda laftigeedana dadaal iyo juhdi hay'adaha amniga gobolka Banaadir iyo gobolka Banaadir way bixinayeen waxa aan soo jeedinaynaa oo aan leenahay warxma tashiil iyo magacyo kala duwan dad dadaalaya oo juhdi iyo waqti habeen iyo maalin bixinaya inaan looga faa'iideysan inaan marka gobolka Banaadir amnigiisa iyo maqaamkiisa iyo maamulkiisa aan la siyaasadayn Maryam Xuseen Jibriil Dalsan TV Muqdisho